السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيادة شرفت الإيميل كسودة الدنيا كجوتين آدي آد بانيني سلام يا. إذا هبينو تايم إذا معلم تايب ولكن على جامعة ولي لسود وهذا ولا ليال. جنن كوا جنن كيني ولكن أن أصحابي ما أنت وحيابا كادل دونا وحويان كبدي دحتال لي باص يا بكر مهدي. قصته هي اختيار فربضان أهرا لقى هذلي إلا كادن ولي كبدي ميدمان. أن أضيق باص مرة بعد صحتك صون نقضي وحنا كهذا يا وحيابها جراي حقيقة ذا. بالمركا وحنا نفيرين دونا balboos baas iyo waxyaabo uu ka hadlayo horta qofka bini'aadmigi waxyaabo fara badan uu xaq u leeyahay baa jirta waxa xaq u leeyahay waxa kamid ah wixiisa isaga iskale ama muuqaal ha noqoto ama fiideo ha noqoto isaga iskale bal markaa waan fiirinaynaa waxyaabo uu ka hadlayo inaguna waxaan ka noqon doonaa un garsoolayaal midna dhinaca saarmayno qofna dulmiimayno boos baas oo hadlaya inaanan gar aanu lahayn siinana qaadimayno qofka kale maqanina dulmi kala saari karmayno waa inagu dibigina waxaan ka hadalnaa waxa weeyaan ama saxaabteena waxaan ka hadalnaa weey ama isku raacsanahay anuu aan naftayda ka soo gooday waxa weeyaan wax wanaag inaan ka hadal bes wanaag xaq markaa waan fiirinaynaa bal wuxuu ka hadlayo سلام كبعدي ولا ليالو سابقتين أنا كحد إنام كبحي سديت إلى باتنك نوفمبر 2020 إنام عبدي إنام كبحي كحدة حجة أوكي هل كان وحن كلا هلا ولكن هو كرمادي ستيل وحما كما هدو يعني لكن وحدتي لا ينكح هلا إدجيسو دجا هذا إدمي وواحد يكون طمع أنا يتنا يجيت أنكو جيرو حوالي كعمل داري waan ka qaadnay boos baas salaanta islaamku waan ka qaadnay waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaat ummadda muslimiinta iyo soomaalidana aad baan kula salaaminaa wadarkasina saxaabay weli wuxuu haystaa abubakar mahdi wuxuuna leeyahay war dadka bini'aadmigii inay isjiijiijaan oo yooyootaan mar walba qurux badnee waxaan anigu leeyahay adigaas kale anaa leh waxaad adigu leeyahay adigaas kale muuqaalkayga iida haddaanad muuqaalkayga iidaynayn wuxuu soo saaray siyo tan ah tan la isku haystaa moogta adduunka waxa la isku haystaa tan waa tan okay ugu horreynta waa isku day inaan ku soo waco masha allah facebook blog ay masaartay and telefonkana blog way so marka I don't need to call you adiga tiyo muuqaalkiisa la isticmaalayo oo ciyaarihiisa oo dhan macnaha suuqa uu ku jiro ayaa telefoonkii laga xidhay facebookna laga xidhay macnaha waxa laga xidhay inuu hawada soo galo soo wuxuu maxba su'aal ba weydiiyo qaba la iska xidhayba libaax dhalay and you don't need to call me uma baahnina ku soo waco adna uma baahnid means ina isoo wacday gacmo isku dhaaf ayaa gacal ku jira marka waxaan kuu sheegaa walaalow aniga 28 ka baxay bishii 11 November ahayd 28 ilaa haddana waxa way kaliyadeeda wali isticmaashaa marka walaalow macaano shalay waxa dhahday kooxda waa soconaysa wax cusub fiican yaa wixii hor ka fiican aan sameynaa tiri marka waxaada cusub oo macaanka subso odaygu markuu kooxda u joojiyay abubakar mahdi wuxuu cadeeyay inuuna waxaan istaagayn muuqaaladii ay soo saari jireen muuqaalo ka qurux badan ay soo saari doonaan macnaha ay ka maarmi doonaan boosbaas laakiin weli boosbaas baa kaalintii ku jira markaa boosbaas wuxuu leeyahay mar haddaad iga maarmaysid maxaad iga maarmi weyday iiddaa waxayga aniga iskale xaqadana wixiisa isagaa iskale muuqaalka isagaa iskale iidda hadduu idhaa waa iidda maya waa maya hadduu qofku dhaa war waxaan aniga iskale iiddaa waa inaad u daysaa xaqu saasuu sheegaya haddaanad u daynayn wixii ka soo baxa ayuu leeyahay qaybtiisa laakiin imiga boosbaas wuxuu rabaa laba in loo daayo iyo in wixiisa helo anusaan qabo taana xaq buu ku leeyahay anigana wixiga xun ama qareebka ah walaalow ii dhaaf ama walaalow klibka soo gelisid
lacagtaydu waa inaa isiisaa. We are not talking about 200 iyo 300 baan kama hadlooy runaan kuu sheegaa. maxaa yeelay haddaan indhahayga waa furmay waa arkay meesha wixii jiro. adigu markii hore waa iska hurday wax meesha soo gala si wax loo kala qaato xisaabaadka meesha alla ma ogeyn marka adigu imigu waagu ku bariyay marka waxyaabo yar yar ka markii hore uu qaadan jiray imigu waa ka hanwiyay maadaama uu ogaaday meesha inay wax soo saarkii buu ogaaday marka wuxuu leeyahay inuu 200 iyo waxyaabaan hadda waxba ima tarayaane ama xaqaygii cuslaa aan qaato ama muuqaalkayga ii jooji marka walaalow haddii ummadda nebi maxamed ku jirto lagu soomay lagu salaaday ya waxaa samaynaysaa kilibyadeeda ii dhaaf ama kala haqayga waa inaa isiisaa. hadaad allaha ka cabsanayso oo islaamnimo ku abdirsato waxayga iidaa adaan kula hadlayaa waxayga iidaa su'aashiis waa sidaas haddii adiga daawade adigaagani daawanayaa haddii ay tan oo kale kugu dhici lahayd maxaad samayn lahayd daawad adiga laga rabaa jawaabta waxayga iidaa soo ma tiraadeen waad oranaysaa war waxaan aniga iskale iidaa ama waxaan xaq ugu leeyahay si ليش انت سحمان قاري marka ijid aan ku jid gacmadana leedahay. Okay, inta isticmaali kartid ama igu shaqaysan kartid waa igu shaqaystay waa isticmaashay hadda iyo dan waxaad ku dan anigana ii dan waxaan ka codsanayaa odaygu wuxuu ogaaday in lagu soo shaqaysanay sanadaha oo dhan bo isagu macnaha isagana lagu soo shaqaynayay waxa soo baxana ay dad iska cunayeen Soomaalida waxa ku maamaada doqon milantay geesi miliqsi bartay isla meeldiidman macnaha qof wuxuu doono iska sameeyaa hadduu qof socdo marka dambe qofku macnaha uu isbedelaya wixii calooshiisa ku jiro dhan soo celinaya marka meesha waxa ka iman karta waxyaabo kale oo fool xun marka wuxuu xaq u leeyahay qofku inuu wada sax maro marka ninkan muuqaalkiisa adeegsanaya xaqadu waa inuu laba sameeyo inuu qofku wixiisa siiyo waliba wax buuran uu rabo iyo inuu ka saaro rakaata ma waa codsi walaalow klib aan leeyahay inaadan soo gelin filinka la yidhahdo xujo ever never weliba lacagta isinis waxaan ka jeclahay klibkayga adoo soo gelin aan lacagta hata ma rabin filinkayga la iida filin aan ku jiro habla kood xujo la yiraahdo muuqaal boos baas la yiraahdo yana ka dhex arkin taagay lacagta iska haysabo yana ka dhex arkin meeshaasi magacayo ama muuqayga daawade hadaadi tan oo kale ku haysan lahayd ma sidaas aad oran lahayd mise waxaad oran lahayd iska dhuuq saaxib muuqaalkayga iska soo gasho hawlahaagana iska wado sidaas aad oran lahayd anu maan idhaahdeen weliba anagu halkan islamaana dhaafnin way cadaaladu waxay sheegaysaa qofku dadku inay wax wada cunaan ama ay kala tagaan haday kala tagaan qof walba wixiisa raacay qofkii maxaan ku challenge lahaay macnaha aqoon u lahayn filimka juluf aqoontiisa isaga raacday wax muuqaalana lagama soo gelin karo xaq buu leeyahay xaq buu leeyahay soo dhigin Soomaali ma tahay ummadii marxaati ahaada abuukar mahdi walaalo macaano klib aan ku jiro YouTube ha soo dhigin ma fahamtay ama kala dhiisha dacwo tagtana wallahi diyaaranahay I can get a lawyer no problem rakaati iyo hinjibaadna ma aha runaan kuu sheegaa kooxda waxaan sheegay aniga oo on YouTube kana ku jira 28 November inaan ka baxay wixii ka dambeeyo without my permission ma soo dhigi kartid you feel me hey odayga si wuxuu hanjabaadii ugu dambeysay u diraya wuxuu leeyahay saaxiibow steel aad wixii ka dambeeyaan waxaan ogolahay ma jirto haba yaraatee waxaan ogolahay ma jirto wuxuu ogolayaa ma jirto iida waxayga iida
anigaas kale iida haddaba asxaabaan fiirine qofkan bini aadmiga labadan qof way isku dhaceen say doonaan iskugu dhacaan wayna midba dawadiisu qaaday waxa wada la isku marmariyo laakiin waa la kala socday wali laakiin nin uun baa socda ka kala ma socdo nin uun baa socdee ka kala ma socdo waa nin aamusan waxba kama hadlayo tuubadiisa biyaha ugu jirta tuubadiisa ayaa biyaha ugu jirta وانا ايق دون لك كوبيه شبط I don't want to talk to your puppies. مفهمتي? You know the puppy? بابي هوري نوغو شرح odaygo بابي waxa weeyaan buu ayga yar naqan ay ka yar maartay ayga yar canuga qofa soo yaqaan ayga sabab leeyahay buu magan cid aad duntay ku soo dir laakiin waxayga iida jawaabtu intaas ku dhameystirantay waxayga iida waa muuqaalkan isagaas kale ilaahay baa isaga ifka keenay muuqaalkanna isagaas kale cid loo daba fadhiisanayna ma jirto aniga le haddaan wax jilid xumaa iyo haddaan wax jilid wanaagsanaa bannaankan la maray saaxiibo waxayga ii dhaaf saaxiibo wixiisa u dhaaf haddii kale box baa iska shaqaynaya those puppy, you know, inta screenka soo fadhiistaan ha hadlo. I ain't gonna say nothing. Those puppy are so deserted, including ninka la dhaho Wisnam, midka bidaarta qabo. Zola, yeah, that's the one. Hata ku soo dirtay. I don't give a toss. What I need is my money. I mean, what I need is حساب ديني كله سوق لي حتى ninka kale soo galin wuxuu leeyahay isaguna hadaad xitaa ka soo qaadsan ku haysato aan waxba iga magalin asxaabay waan aragnaa xaalku siduu yahay qofkuna xaqiiqadu waxay tahay wixiisa qofku isaga iskale inagu hore waxaanu sheegnay inaan xaq ku dadaalno xaquna wuxuu sheegayaa war labada qof haday saf garan waayo banaanka inay kala maraan labada qof haday saf garan waayo banaanka inay kala maraan marka boss baas wuxuu leeyahay saaxiib aanu banaanka kaamire waxaygiida war ninkan oo wixiisa u daay isaga iskale xaqiiqadu saas waay wixiisa ninkan isaga iskale u daa clipkiisa ha ka soo gelin waay ha ka soo gelin isaga iskale inagu bulshada Soomaaliyeed baan ka mid nahay daawadayaashaan nahay xaq soorayaal baan nahay xaq wuxuu sheegayaa qofku wixiisa shaarkaaga hadii lagu qabsado garbixiyada war qof waxaygan iida ninkan waxan way caddahay clipkan anigaas kale ha iga soo gelin kooxdaada waan ka baxay xaq buu leeyahay qofkan marka waa inuu u daayo waxyaabaha kale kuma noqonay maxaa jira iyo iska dawareeg ma sameeyeen inagu waxaan ka hadlanaa kaliya dul istaaganaa waxa hadda jira anigaas kale ninka lagu soo daray meesha ma rabno ninka kale inagu inaan ka hadalno laakiin waxaan ka hadalnaa wixii meesha jira wax weyn wixiisa ninkan ha loo daayo diga loo xil saaxiib aanu box baan ka shaqeynaa box fed baan ka shaqeynaa taagay ma feertaan inaan inagu talo maya oran mayno laakiin abukar madi waxaan leenahay u daa wixiisa isagaas kale u daa xaquna saas u sheegaya asxaabi meel ka soo adduunyada ka joogtiin aad iyo aad baan idin salaamaya jananka like iyo subscribe ta saara dinu meesha as naga taabto maxay idinku dhacay haddaad hore igu daawan jirtay adigu wax subscribe saarin abti maanta saar share barnaamijku soo meel fiican u gaadho like tana saar si aad dhiirigelin oo siiso commentingana soo bixi fikirkaagu waa noo muhiim dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ka joogto aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan idinkaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu